Afmeer fashilka iyo dabargoynta argagixisada Puntland. Tani waa bilowga howlgalka Afmeer iyo qaybtiisa magaalo ganacsiyeedka Puntland ee Boosaaso. Waxaa maalinkii labaad maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus ee gobolada Bari, Karkaar, Gardafu, Sanaag iyo Highland ee loo yaqaan shanta gobol fadhigeeduna yahay magaalada Boosaaso ay u fariisatay dhageysiga kiiska shabakad argagixiso ah oo marar badan si isku mid ah ugu diga rogonaysay Daesh iyo Al-Shabaab. Waxaa shabakadan ay ka kooban tahay 6 nin oo dilal iyo qaraxyo ku bartilmaameedsaday haldoorka iyo meedii bulshada reer Puntland gaar ahaan in dheergaradkii magaalada Boosaaso. Waxaa maalinkii shalay ahayd maxkamadda ay ka horqarteen shabakadan 4 nin oo kamid oo maxkamadda la keenay jariimooyinkii iyo xasuuqii ay u geysteen shilib culistii reer Bari, ha noqdaan saraakiil ciidan, ganacsato, nabadoonna dhaqan, culimo iyo qof walba oo reer Boosaaso macno u lahaa. kaaga darana waxa ay wali u hamuun qabeen daadinta dhiigga iyo israacinta intii ka hartay haldoorka gobolka Bari, iyaga oo laamaha amniga ama qaybta baarista u xaqiijiyay ku dhawaad 20 qof oo ay dilal iyo qaraxyo hor la u maleegayeen. Shabakadan ayaa sida baarista ku cad ka kooban 6 nin oo 5 kamid ah gacanta dawladda ku jira, halka horjoogaha shabakadan oo la yiraahdo Cabdiraxmaan Lahoor uu maqan yahay, kaasoo dhawaan Afmeer lagu baahin doono sawirkiisa oo lacag la duldhigay. Doodeer oo darafyada kala ah xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus ee shanta gobol ee Puntland, Gaashaale Maxamed Xuseen Foodcade iyo qareenada u doodayay 40 eedeysane ay isweydaarsadeen. waxaa maanta guddoonka maxkamadda Gaashaale Dhexe Cabdirasaaq Jaamac Cabdille showr maxkamadeed kadib uu ku dhawaaqay go'aankii maxkamadda oo ah dil toogasho oo ay muddo bil ah oo racfaan haystaan. Boosaaso waxay in badan gabaad u noqotay qowlaysato argagixiso oo ka tirsan Daesh iyo Al-Shabaab, kuwaasoo ku mabay dhiigga haldoorka reer Boosaaso, balse waxaa bilowday howlgalkii salalka iyo dabka looga shidi lahaa argagixisada gabaadka ka dhigan jirtay gobolka Bari. Boosaaso waxay in badan gabaad u noqotay qowlaysato argagixiso kuwaas oo ka tirsan Al-Shabaab iyo Daesh, shilimaan ku daadinayay dhiigga dadka haldoorka u ah reer Boosaaso. Imikase waxaa bilowday howlgalkii Afmeer oo salalka iyo dabka looga shidi lahaa argagixisadii gabaadka ka dhigan jirtay gobolka Bari. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلهي كيابنا نبي محمد صلى الله عليه وسلم محكمة دوين أفرنتها فلسطين. بسم الله الرحمن الرحيم. مدن قدومي قرص ريال شلي وحن محكمة دهورت كيرني أفر هذه السنة هذه السنة مقنعة كواس وكو هذه السنة ما تود كم إذا هنشيها ururka argagixisada Al-Shabaab kulli hadda gabagabeysa la yiri nimanka maxkamadda hortaagan waxay maxkamadda horteeda ka qirteen inay ka tirsan urur argagixiso. waxay maxkamadda horteeda ka qirteen inay laayeen dad tirabeel aan tira lahayn oo ah dadkii oo isugu jira ismadii, waxgaradkii, saraakiishii, ciidankii, ganacsatadii, haweenkii, yani cid ay dhaafeen ma jirto. dhammaantoodna waxay ka qirteen maxkamadda horteeda. sidoo kale waxay qirteen in yani gacan kaliya aysan ahayn qarax ay intaas oo qarax ay geysteen in ku waxyeeleeyeen dad badan oo muhiimad u lahaa dadka reer Puntland. marka xafiiska xeeraalintu markaan aragnay gal dacwadeedkan, markaan akhrinay dhammaan cadeymaha gal ku jira oo ay kamid yihiin istiidmanada laga qoray eedeysanayaasha, waxaa noo cadaatay in dambi dhacay kuwa galeen ay yihiin 4 eedeysane maxkamadda hortaagan iyo kuwa kale oo aanu gadaal ka keeni doono. sidaa daraadeed maxkamadda sharafta waxaan ka codsanayaa in lagu xukumo dil toogasho ah oo ah ciqaabta dadkii waxgaradka ahaa oo labeenta ahaa reer Puntland oo ay gacantooda ku laayeen. maxkamaddu waa maantanta maxkamaddu waxa ka codsanaya in la cafiyo ciqaabka lagu bedelo toogashada. sharafta waxa ka codsanaya cafis madaxweyne. maanta waa maalin weyn. maxkamadda waxaan ka codsanayaa inay xornimadeeda siiso cafis ifiso.
محمد عفش نوفيس diiwaanada qareen Axmed Salaad Maxamed qareen oo ah afarta eedeysano maxkamadda horjooga iyo nin maqana waxaan codsanayaa maxkamadda sharafta ka codsanaya oo ku gabagabeynaya nimankaas waa muwaadiniin Soomaaliyeed waxaan sheeg ay yiraahdeen waa maqalayna waa ogeyn maxkamadda waa haysa waxaan codsanayaa in lagu xukumo oo loo naxariisto iyo dhalinyarada eegayo iyadoo la eegayo wacyiga iyo waqtiga jira in la ku bedelo eeda qodobka labaad farqada labaad maxkamaddu waa mahadsan maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ay dambiga culus ee shanta gobol bari karkaar Highland iyo Gardafu ujeedo xukun maxkamadeed maanta oo ay taariikhdu tahay 22 bishii 6 2022 waxay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ay dambiga culus u fadhiisatay isla markaasna go'aan ka soo saartay dacwad ciqaab ah iyadoo maxkamadda fadhigeedu u dhan yahay isla markaasna uu xeeraaliye ka yahay xeeraaliye maxkamadda ciidamada dambiga culus ee shanta gobol sanayaalna ay ka yihiin kow Cabdiraxmaan Ciise Axmed Lahor ina muumino abtidoon 63 sano jir ah jaamac aadan tusbaxle kaarbono ina faadmo faarax 44 sano jir ah ayuub cumar shire biixi magaciisa afkarashada weeye ina johro faarax dalmar 32 sano jir ah cabdillaahi salaad boos mahonge magaciisa afkarashada weeye ina bariso muuse dirir 28 sano jir ah maxamuud abshir muuse magaciisa afkarashada oliyo ina xaliimo yuusuf maxamed 25 sano jir ah dood dheer iyo fadhiyo badan oo maxkamaddu qaadatay oo loo bari qaatay kadib maxkamaddu waxay soo gabagabaysay fadhiga ugu dambeeyay oo ah maantay oo taariikhdu tahay 22 bishii 6 2022 sidaas darteed maxkamaddu markay aragtay eedda xeeraalinta iyo jawaab celinta qareenka eedeysanayaasha maxkamaddu markay akhrisay dhammaan qoraalada ku jira galdacwadeedka maxkamaddu markay qiimeysay doodda iyo difaaca dhinacyada maxkamaddu markay ku qanacday qiraalka eedeysanayaasha ay ka horqirteen garsoorayaasha hortooda sidoo kalena ay ka qirteen maxkamadda horteeda maalintii labaad maxkamaddu markay u cadaatay in eedeysanayaashu yihiin dambiilayaal galay dambiga lagu soo eedeeyay maxkamaddu markay u cadaatay in eedeysane Cabdiraxmaan Ciise Axmed Lahor oo ahaa ninka asaasay shabakadda isla markaasna xukumay nimankan afarta ah iyo kuwa kale xiran isla markaasna uu ka baxsaday gacanta ciidamada ammaanka maxkamaddu markay aragtay codsiga iyo gabagabada dhinacyada maxkamaddu markay daalacatay shariicada islaamka sidaas daraadeed shanta sano ee maxkamadda afarta sano maxkamadda horjooga iyo sano maqan kow Cabdiraxmaan Ciise Axmed Lahor ina muumino abtidoon 63 sano jir ah jaamac aadan tusbaxle kaarbono ina faadmo faarax 44 sano jir ah ayuub cumar shire biixi ina johro faarax dalmar 32 sano jir ah cabdillaahi salaad boos mahonge ina bariso muuse dirir 28 sano jir ah maxamuud abshir muuse oliyo ina xabiibo yuusuf maxamed 25 sano jir ah kuwaas oo dhammaantood ay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii dadkii ay laayeen waxa ka furan rafaan muddo 30 cisho maxkamadduna waxay xiran tahay bila tawfiiq